caalimka daaciga ah ee Sheekh Cabdirasaaq Sheekh Cali Sheekh Ibraahim iyo maadixa nabigeena Muxammada nabadgeyna xariis korkiisa Allah yeelay ee Sheekh Mustaf Xaaji Cali Hareed oo safar dhanka dacwada ugu maqnaa gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha dhulka Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. markaska sheekha murabbiga ah ee Sheekh Cali Sheekh Ibraahim ayaa soo dhaweyn ballaaran waxa uu sameeyay jamaacada kala duwan ee ku abtirsata Sheekh Kuulow iyadoo uu goobjoogna uu ka ahaa Sheekh Cali Sheekh Ibraahim. ugu horeen qaar ka mid ah mashaayiqdii soo dhaweysay wafdiga culimada ah ayaa muujiyay siday ugu faraxsan yihiin dib ugu soo laabashadooda magaalada Muqdisho. walaalaha anaga sharafta badnaa oo dacwada islaamka fidinteeda u maqnaa oo wadankaas in badan ay soo mareen haddana wadanka ay ku soo laabteen magaalada Muqdisho ay ku soo laabteen caasimadii khayr badan Allah u jazaayaan leenahay oo ku faraxsanahay juhdi badan ay bixiyeen meel badan ba dacwada ay gaarsiiyeen oo dariiqada ay ku faafiyeen wacyi galiyeen ilaahay baryeen marka juhdigaas badan ay bixiyeen Allah ka abaal mariyo annagana insha Allah ta'ala waa ku faraxsanahay arintaas ilaahay idinkiisa maqaam iyo martaba Allah ku siiyo. maanta waa maalin weyn waxaan soo dhaweynaynay dhammaan jamaacada Sheekh Kuulow dhammaan ajiladeedii iyo khulufadeedii iyo sheekheennii oo na dhex fadhiya sheekheena Sheekh Cali Sheekh Ibraahim ilaahay maqaamkiisa Allah waa weyneeyay Allah noo dheereeyo cumrigiisana Allah noo dheereeyo. waxaan soo dhaweynaynay waftigii Sheekh Cabdirasaaq uu hogaaminayay sheekheena jaliilka Sheekh Cabdirasaaq Sheekh Cali oo gobolada dhexe ilaa Mudug salkiisa wafti iyo duco iyo khayr ku kala bixinayay iyo roobdoon baan maanta halkan lagu soo dhaweynayaa. marka taasina waa maalin weyn. culummadu Sheekh Cabdirasaaq ilaahay khayr siiye dacwo fiican buu meesha maxaan ku raada uu ka soo gutay asaga Sheekh Hareed waxa loo baahan yahay xamlada ku xigta jamaacadu 20 qof in isku raacdo qof walbana ilaahay dartiis inuu u aado oo jeebkiisa tigidkiisa uu kala baxo soo socod cuntadiisana uu ku tashto oo madaaris iyo maraakiis meesha laga sameeyo oo la nooleeyo raggiina waxa la rabaa nin walba inuu caalim isku filan u noqdo caalim dacwada uu istaago subaxdii soo bilaabo 7 maalmood wadaya haye inuu noqdo mudarris suu kitaabka u hooseeyo fanni walba intuu ka bilaabo meesha ugu sareeya geeyni haddana ilaahay wajigiis raadinaya tuulo intuu tago inuu ilaahay dartiis u nooleeyo rabee dad uu ka soo saaray halkaas gaarsiinay sida Abu Sheekh Cali waxa asoon qofna ka garanay. intaas kadib Sheekh Cabdirasaaq Sheekh Cali iyo Sheekh Hareed ayaa ka waramay safaradii dacwadeed oo ay ku tageen gobolada. maanta dhan inaad qoraxda iyo kuleylka taagnaydeen si aad noo soo dhaweysaan waan idinkaga mahad celinaynaa. shukran wa jazaakumullahu khayran baanu idin leenahay ilaahay ha idin abaalgudo. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. saad ka warqabtaanba safar 30 maalmood qaatay ayaa waxaanu ku soo kala bixinay gobollo ka mid ah iyo deegaano gobollada Soomaaliyeed iyo deegaanada Soomaaliyeed ee ah deegaanadii oo aabe Sheekh Cali Sheekh Ibraahim oo dariiqada ku nashrin jiray dhulkii oo aabe mari jiray ku khilaaweyn jiray ku ducayn jiray madaarista iyo masaajidda ka dhigi jiray tarbiyada iyo dacwada uu ka fulin jiray waxaanu u aadnay ixya ahaan inaanu soo noolayno oo dadkii aanu magaranaysaa ee maxabadii ku soo dhaqaajino. run ahaantii waxaanu u baxnay raadkii sheekha aad soo noolaysaan dariiqadii aad soo bowbaarisaan dariiqadii ixya aad ku samaysaan. waxaan leeyahay oon qirayaa maxabada iyo jadbada iyo dacwada meesha ka socota madaarista duruusta cilmiga ahee socota tarbiyada xaadiyada iyo tawasulka socda khayrka meesha ka socda annagaa nala soo ta'fiiriyey annagii inaan wax ta'fiirino u tagnay annagii baa nala soo saameeyey. maxabada meesha ka jirta waxay ahayd fawqa maa natamanaa waxaan malaynaynay
wax aad uga sarreeyey ayay ahayd. axbaabtii aan kula soo kulnay waxa ugu badan horta ay noo soo farayeen waa salaan naga gaarsiiyey sheekha iyo axbaabtii. meel aanan salaan ka soo xambaarin ma jirto. waxaana la yidhaahdaa isha waxay aragto iyo waxay maqasho uma siman. markaa maqashada abushe cali saamaduu joogi jiray, markaa maqashada abushe cali garacaduu joogi jiray, markaa maqashada abushe cali jariibanuu maray. maqalka iyo aragtida wax aad u kala fog waa. marka aan dib u xasuusto taariikhaha iyo dadka aan la soo kulannay iyo dad cimrigooda 80 dhowr jir uu yahay, qaar 70 jir uu yahay, markaa dib u xasuusto sometimes ilina ugu soo istaagayso. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. marka waxa aan soo aragnay dadka sheekh uu soo irshaadiyey, dadku soo hanuuniyey, dadku u tegey baahida diinad ay markaas qabeen iyo maanta meesha ay joogaan. 50 sano kadib magaalooyinka aan annaga marayno weli qaarkood aysan magaalanimo u dhoweyn say ahaayeen 50 sano ka hor. dadkaas baahida ay qabeen intay la ekaad. meeshaa martid waxaa lagu leeyahay meeshaanuu sheekha dugsi ka ooday, meeshaanuu sheekha fadhin jiray, ilaahay ku bari jiray, ظاهروا dadka ka daaweyn jiray, baadinuu dadka ka daaweyn jiray. ugu dambeyntii waxaa munaasabadii duco ku soo gabagabeeyey Sheekh Cali Sheekh Ibraahim. nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayru dunyaa wamaa fiiha. in sababtaada hal qof alle ku soo hanuuniyo ayaa adduunyadii waxaa dhexdeeda yaallo ood la baxda ayaa kaaga khayr badan. marka iyagana إلهي هنون هداية محبة عشق علمي أنوار إذبي أفضح مرتبة مقام جماعة أي سوى هنونيين الله هسيو. إلهي فلقيس فلق رسولك فلق أولياء وحي الله كجري أبا النبات قلي الله أقوم بدلو وحي أبار أوهيين آرن الله أقوم بدلو وحي آفاه كجرين إلهي نبات إبرواقها أقوم بدلو. أنت اللقبة أي صوم مريان لقطة وحنا قدقني داو دائم أبان قدقني هنون كامل أبان قدقني. إلهي جماعة أي صور حمرين جماعة نبينا عليه الصلاة والسلام وصور حمرين الله قدقه نعمة أبدية الدولة نما دائم راحة أدونك أن حريص آخر عند الله كسيو. إلهي فلقي ثوابك إله وأسكره iyagana ilaahay ka thawaabiyo. waan u ducaynay antay ka soo shaqeeyeen, waan u ducaynay oo u soo duceeyeen ducadooda Allah u aqbalo. annagana waan u ducaynay anta aan u dirnay oo ka soo shaqeeyeen intay u duceeyeenna waan ula ducaynay ducadooda Allah u aqbalo. iyagana duca daa'im hanuun مخلوقة كسو هنونيان من مشارق الأرض ومغاربها عند الله كسيو. إلهي فلق رسولك فلق أولياء إياك وحي صوب بوغدين أيام أسول الدعيني دعاء دائم إبان الدعيني دعاء كسو داهين إبان الدعيني دعاء كتر بينو كبابين إبان الدعيني آرن دق إبان إلهي فلق رسولك فلق أولياء فضلك شيخ عبد الرزاق يحرتيسي أيام كسيني. إلهي هأبر واقعيو برواق دائم الله هسيو. إلهي فضلك رسولك فضلك أولي فاتحة. Sheekh Cabdirasaaq iyo Sheekh Hareed ayaa dib u sii ambaqaadi doona howlahooda dacwada diinta Islaamka oo ay ka wadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.